برنامج كان لهذا أفر دبشن وأن قارنا قف بركي قفدن يقف بركي وأنا لنا بقولوا جديد يبلعد وكسمية لنا يسقوا برا بقر كان موجود 4.5 بالشيء يلنا halka waxaad ka dareemaysaan sida suugaanta aan ugu marayno siyaasadda oo anagu siday nala tahay waxaan isleenahay dhinaca wanaaga baad ka eegaysaa waa hoga tusaaleyn lagu hoga tusaaleynayo dadka marka mas'uuliyadda haya ummadda inay u adeegaan sida u wanaagsan halkan kuma soo koobi karno saha ama suugaanta aan isleenahay dhinaca saameyn weyn bay bulshada ku yeelanayaan haddaad xusuustaan eesiha wadaniga Soomaaliyeed adinku waad yaryarayseen balse dadka daadeeda ay wixii ugu horeeyay waa dareemi karayska waxaan jeclahay hees la yiraahdo geesiga dhulkiisa guusha uu horseeda geerida disha geedka habo wala dhirigelinaya nina wuxuu leeyahay oo kale abwaan kale geesiga damiir la ila dil ku talagala ama libin dadka la haro inuu duudka dhiibtaa hada waa ku dalqa qeyladaantuna waxay tiro شمع داري غيلان تقدر هذي دلك وده قاعد دقاق ومدوع وادلي كرا دوني ما انتاي دور كيس كشرا والله در قوم كدين تكو غرابته دبدت هلا يدلانو حق دراي هلكا واحد كارك كرتا حريركا سوغانتي سياسته اي انها ودلين iyo saamaynta ay ku leedahay marka waxaan qabaayin hadii suugaantu waa midi laba aflaway hadii sida san loo isticmaalo hadii wanaag ay macnaha ummadda dhexdhigi kartaa hadii si xun loo isticmaalana waxa weeye ummadda waxay dhexdhigi kartaa dagaal iyo halaag iyo hoog macnaha aan harin ad garan karaysaa dawladihii hore macnaha ina dalka ka jiray ama dawladii ugu dambeysay waxa la yiraahdaa suugaan ayaa lagu dumiyay la cruiser gado walla socotaa lagu hoga tusaaleenahay haddana waxaan isleenahay suugaantu hadii wax lagu dumiyay waxna waa lagu hagaajin karaa marka waxaan qabaa suugaantu waa asaaska ama waa asadka ama hantida ummadda Soomaaliyeed ee leedahay dal aan macnaha hade suugaan iyo dhaqan iyo hidda aan lahayn hade horumar ma gaaro marka waxaan qabaa in ay tahay hantida ummaddu leeyahay iyadana ayaa haboon in hadiyo jeer la isticmaalo in ummadda lagu hoga tusaaleeyo qoladan gaalada la joogna waxay raad power of a song iska qeeladaan inaha uu yeeshay waa dareemi karaysaa ummadda ku saameeyay waxa laga soo wacayay ilaa ceelasha biyaha ariyaha qaxootiga ilaa dhadhaab baa laga soo wacayay adduunka inaha meel aan laga soo wacin magaalada laga soo wacin ma jirin marka waxaan qabaa suugaantu inay awoodda ay leedahay dalkana ay qayb ka qaadan karto ummadana qayb ka qaadan karto sidii lagu nabadeyn lahaa sida ayaad moodaa inay macnaha suugaantu xiriir u leedahay siyaasadda waa marka loo isticmaalo dhanka wanaagsan aad iyo aad ayaan mahadsantahay abwaane kolley waa kugu soo laaban doonaa suugaantaada iyo waxyaalaha ula jeedo dad badan baa waxa dhood kaga jira heeso badan oo samaysay كلي ولا صرف لي عوا أقويها الذي أو مثليا أرض هندية يو أبوه الذي قاعد قيلان يقولوا الصومال من أرض عوا مثلي سنة ووضع جمنا وحرجني برنامج قيبت خلاء وحقاً دونا أقويها الذي أرض هندية وهل كان أيه ستة ساعة ولو داونيو وحمر كله كعو دارنا ويحيل فصما ما دام برنامج وكو يهي ويحيل دمان إن شاء الله تعالى وصحي دونا kooxda dhinaca aqoon-yahanada ayaa markaan u soo bayrinaa sida la wada ogyahay Hindiya ardayda joogta ee Soomaalida waa arday aad u fara badan waxaan halkaan caawa fadhiya qayb ka mid ah ardayda oo ayagu diyaar u ah inay soo gudbiyaan sida ay wadankooda wax uga bedeli lahaayeen ama marxaladda dalka uu ku jiro ay qaybtooda u qaadan lahaayeen haddii mid iyo laba ka mid ah aan mikrofoonka u dhiibo ardaygan igu xiga ayaa mikrofoonka u dhiibaya bal inuu soo bandhiga asaguna goolka kaga aadan ama kaalinta kaga aadan waxa qabadka dib u soo celinta iyo nabadeynta xaaladda uu ku sugan yahay dalka Soomaaliya arday kastana magaciisu sheegi doona iyo waxa uu bartay marka uu ka hadlo barnaamijka haye ardayga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan kadib marka waxaan salaamayaa abwaanka ama kabiirka kooxda qeyladaan
runtii caawa sharaxaad buuxda naga siiyey waxa ay higsanayso iyo wixii lagu aasaasay kooxda Qayladhaan oo runtii aad aan wada garanayno kaalintii doorka lahayd ay ka qaadatay musiibadii waddanka ka dhacday laguna aasaasay barnaamijkaas anigoo ku hadlaya magaca ardayda ama aqoon-yahanada dalkan Hindiya jooga magacaygu waxaa la yidhahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Cumar dadkan waxay yaqaanaan G8 markaan ka hadlo doorka aqoon-yahanka iyo badbaadinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ugu horeyntii aqoon-yahanku waa shakhsiga keliya ee runtii u istaagi kara waddankan burburay oo dhowr iyo 20 sano aan dhahay 22 sano dhibaatadu ay hareysay sida saxda ah waddan kasta oo burburay waxaa u istaaga had iyo jeer aqoon-yahankooda haddii aan la helin midnimo iyo isku xirnaan ka dhaxaysa aqoon-yahanka dal ma istaago nafsadiisa markaan ka hadlana doorka aqoon-yahanka iyo kaalinta kaga aadan dadka iyo dalka iyadoo ay maanta aqoon-yahano badan ay ku mashquulsan yihiin dalahooda gaarka ah halka ay malaayiin Soomaali ay la ildaran yihiin cudurro gaajo dagaalo dayac iyo darxumo runtii waa garan kartaa maanta waxaan leenahay Soomaali ahaan aqoon-yahano aad u fara badan oo runtii malaayiin dhaafaya oo ku kala nool adduunyada dacaladeeda sida saxda hadduu ilaahay ku aadiyo wadada saxda ah ee dadka looga bixin lahaa musiibadan hareysay waddanku ka baxaya insha Allah kaalinta kaga aadanna waxay tahay in horta marka hore ay isfahmaan midnimo samaystaan is-tixgeliyaan kalsooni isku qabaan inta badan lagana baxo jirada keliya runtii dadka aafaysay oo ah qabiil runtii waa garan kartaa maanta aqoon-yahanku wuxuu hoos fadhiistaa waxgarad ama odayaal taasoo ku salaysan qabiil marka aqoon-yahanku waxaan kula dardaarmayaa runtii marka hore inuu ka baxo barnaamijkaas uu soo jeesto inuu u istaago karaa dal burburay sida Soomaaliya oo kale waxaad ogaataan in waddan walba ee adduunka horumaray dadka u horumaray ay yihiin aqoon-yahankooda waxaan kaloo sida bulshada aqoon-yahanada kula dardaarmayaa inay xoogga saaraan barashada noocyada kala duwan ee cilmiga waxaan sidoo kale aqoon-yahanada Soomaaliyeed kula dardaarmayaa inay dareemaan mas'uuliyadda kaga aadan dalkooda rabbina uu kula xisaabtami doono waxyaabaha ay barteen haddaysan dadkooda kaga faa'iidin sidoo kale aqoon-yahanku waa runtii aaladda rasmiga ah maanta loo adeegsan karo dhibaatadan waddanka 22 sano haysay in laga baxo maysan dhicin intii 20 sano dhibaatada lagu jiray in loo yeero aqoon-yahano la fadhiisiyo meel la yidhaahdo bal xalka ama last solutionka ha loo helo waddankan dhibaatadu ay baabi'isay waan rajaynayaa mustaqbalka in dad aqoon-yahan inta loo yeero meel la fadhiisiyo la yidhaahdo bal adinka xalkeena marka hore waa inay samaystaan hoggaan ay isku fahmaan isku xirnaadaan una muujiyaan midnimo iyo wada qabsi Soomaalida hore wuxuu maamulaa gacmahooda jir bay wax u gooyaan in fact xaqiiqadu jirto waxay tahay inay maanta tahay maalinta loo baxsan lahaa aqoon-yahanka adduunka qofba mar meel loo baxsada maanta waxay taagan tahay in loo baxsado aqoon-yahanka in loo baxsado maalinteedii ama waqtigeedii ama jaaniska la siiyey Soomaaliya waa qaran marka hore wuxuu u baahan yahay qowmiyad markaan sidaa leeyahay let's put in context Soomaaliya waa qaran laakiin wuxuu u baahan yahay qowmiyad qowmiyaddu maxay tahay qowmiyaddu waxa waa aqoon-yahan dad u istaaga waddankan dhibaatadan halakaysay dad u istaaga oo ka hadla oo markasta idaacadaha istaaga runtii waxaan ku hambaleynayaa doctorka ama kabiirka doctor Cabdishire jaamac oo runtii u istaagay asoo maanta dhaqaale kale aan ku helaynin waqtigiisa iyo maskaxdiisa geliyay in waddankan marxaladan ka baxo marka hore suugaanta dadku waxbay u fartaa iyaga oo way u doodaa marna way ka doodaa marka macsaas leeyahay Cabdiraxmaan wuxuu ka mid ahaa ardayda ka soo qaybgalay barnaamijkan sida tooska u daawaysay barnaamijka waxa uu yeelan doonaa su'aalo ay isweydaarsan doonaan aqoon-yahanada ku sugan dalka Hindiya
iyo kabiirka oo asagana caawa aan u malaynayo su'aalo badan in loola soo gagabanayo asagana kulli waxaan rajaynayaa laftigiisu inuu su'aalahiisa soo wado si aan u sii ogaano bal fikradaha ardayda sida wax ay door ka qaadan karaan bal markana aan ardayga kale aan mikrofoonka ku soo dhaweeyo arday walbana waa inuu sheego maadada uu dhigtay iyo magaciisa si dadka daawanaya ay u arkaan dadkii بسم الله الرحمن الرحيم مركور waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxaan rabaa inaan u mahadceliyo daktarka ama madaxa guud ee kooxda qayladaan daktar cabdi shire jaamac oo isagu haatan barnaamijka si toosa noogu jira iyo khadar gaas oo isaguna ninka suurtageliya barnaamijkana noo qabsoomo iyo walaalkan maxamed cabdi dacar oo isaguna qaybta farsamada noo fadhiyo runtii rag aad isugu xilqaameen intaa markaan kasoo gudbo barnaamijkan ama doodan aynu ka wada hadlayno oo ah ayuu wuxuu u gudbiyaa aqoonyahanku waxaad moodaa inuu bulshada kala hadlo dhinaca qalinka laakiin sugaanyahanku aqoontiisa waxa uu ku gudbiyaa waa xagga odhaahda isagoo ama gabayo ama barnaamijyo kaloo heesa oo wadaniya u gudbinaya bulshada u marinaya si uu ugu dhiirigeliyo haddaba waxaa la odhan karaa labadooduba qayb lixaadle ayay ka qayb qaadan karaan barnaamijka horumarka bulshada waxaa jirta oo aynu soo sheegnay in siyaabo kala duwan labadooduba ay uga qayb qaadan karaan nabadda iyo horumarka gudaha dalka Soomaaliya haddaba markaan ka hadlo aqoonyahanka maanta aqoonyahana waqtigii haddaan usoo dowladdeennii hore ay jirtay oo kale iyo waqtigan waxaad moodaa inay jiraan aqoonyahano fara badan oo maanta qaarkood PhD ama doctor ama engineer ah runtii marka waxaad moodaa qaarkood inayba qaarkoodna ay u suurtagal weeday kuwii rabay inay yimaadaan dalka amni darre awgeed oo ka jirta in la helo kaalinta waxqabadka ama wax ka beddelka aqoonyahanka horta maanta waxaa mudan in ay tahay maalintii aqoonyahanka lagu baxsan lahaa in Soomaaliya ay cidna u maqnayn cidna u badnayn aan ka ahayn doorka aqoonyahanka aqoonyahanada Soomaaliyeed marka hore waxaa loo baahan yahay inay ka kacaan hurdada isu taagaan iskaashiga iyo wax wada qabsiga iyo midnimada iyo badbaadinta waana laga maarmaan marka hore in la helo haddii la doonayo dallad midaysa dhammaan aqoonyahanka oo dhan aqoonyahanka dibadda jooga iyo kuwa dalka joogaba aqoonyahanka dibadda jooga oo kale waxaa jira aqoonyahano fara badan oo profesoro iyo doctor iyo engineera in waddan kasta aqoonyahanka jooga ay istiro koobaan oo ay samaystaan dallad guud ay ka wada dhaxayso oo hal dallad ah si ay u fuliyaan ama ay ugu hagaagto ama ay ugu fududaato barnaamijyadooda ah horumarka si ay u gaarsiin lahaayeen dalka dadkana uga jahli bixin lahaayeen dhibaatadan 22 sano haysata in la diiwaangeliyo wax wanaagsan marka hore dhammaan dadka aqoonta leh ee ku maqan qurbaha iyo kuwa jooga dalka iminka waxaa jira arday fara badan oo iyagu wax ka barta wadamada intii hadda burburku dhacay sida wadamada Malaysia, India, Sudan qaarkood dibadda ay waxbarasho u socdeen qaarkood way jiraan in dalkay ku noqdeen ay ka qayb qaateen barnaamijyadii u shaqeynayaan bulshadooda hase ahaatee marka hore qaarkoodna waxay ka murugaysan yihiin ama ay ka xun yihiin dhibaatada iminka dhiig la'aanta aqoonyahankii ka horreeyey ee ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa waxgaradka ah ay haatan aad moodo inay kala baqeen waxaynu u soo jeedinaynaa in dhammaantood loo wada baahan yahay inaan noqono kuwa taariikhdooda xusto inaan badbaadino dalkeena iyo dadkeenaba inaan aad uga faa'iideyno wada jirka isu istaagno midnimada iyo wax wada qabsiga marka la eego haddaan usoo gudbo aqoonyahanada caqabadaha hortaagan wax la odhanayaa war marka wasiirna la siiyo yac cadkiisa reer kasta xornay iyo cadkiisa soo dhacsan kara waqti ama qof yaa wax soo qaadan kara lama eegayo dhinaca aqoonyahanka waxaad moodaa taaca xagga qabyaalada inay la hartay ayna ka mid tahay caqabadaha hortaagan aqoonyahanka waxa kaloo ka mid ah jahliga aqoonyahano fara badan baa jira dadka dalka u tagay ee qaarkood ku adkaatay inay dadku wax fahansiiyaan oo ay ka mid tahay dhibaato laakiin sugaantu waxaan oran karaya aqoonyahanka maanta waa labada il ee keliya ugu muhiimsan in ay wax ka bedelaan barnaamijka laba qodob keliya ay harsanayeen
waxaan ku jirnay qodobkii ahaa suugaanta iyo kaalinta sida uu doctorku sheegay runtii suugaantu waxay leedahay laba haddii dhinaca maanta loo adeegsado waa run oo waxay ka qayb qaadan kartaa colaadda iyo in lagu horiyo laakiin mar walba waxa wanaagsan in suugaanta ama suugaanyahanka laga helo inuu ka qayb qaato barnaamijka horumarinta nabadda dalka isagoo qorahdiisa usoo gudbinaya bulshada Soomaaliyeed dhinaca kale aqoon-yahaniinta sidaan soo sheegnay haddii marka hore waa in la helaa horta waxa wanaagsan in la helo talo guud oo midaysa dhammaan aqoon-yahanka Soomaaliyeed markii fikirka ama ideyada la helo waxay wax walba u saacidayaan in ay aqoon-yahanku barnaamijyada ay doonayaan si fudud ay u gudbiyaan bulshadooda tusaale ahaan aqoon-yahanku wuxuu isu kala qaybin karaa dhowr qaybood haddii ay jiraan qayb doctora oo kale oo la doonayo inay ka qayb qaataan barnaamijka horumarinta caafimaadka oo kale waxaa jirta qayb iyaguna masalan la doonayo hadday ka qayb qaataan barnaamijka siyaasadda horumarinta dalka oo kale iyo qayb kaloo barnaamijka dadka jahli bixinta oo dhinaca aqoonta in la helo profesoro abuuro jaamacado iyo stuudiyo iyo kollejo lagu soo saaro arday tayo leh oo dalka iyo dadka wax u tari kara sidaa darteed waxaa jira arday fara badan oo sidaas intii burburkii dowladda uu dhacay dibadaha wax kusoo bartay qaarkood waxay soo kartaa dhalinyarada maanta waxay u badan yihiin dad aqoon-yahaniina way jiraan oo fara badan oo dhalinyaro ah laakiin caqabadaha hortaagan baa waxay ka mid tahay dhalinyarada ilaa in ku cadwada inay hortaagan yihiin dad ilaa waqtigii hore ee aynu xornimada ama qaadanayna waqtiyada kusoo jiray barnaamijka siyaasadda dalka in ay dhalinyarada ay siin lahayiin chance ay dadkooda ugu soo gudbiyaan barnaamijyadooda waxa ay soo barteen si ay ugu faa'iideyn lahaayeen dadkooda iyo dalkoodaba insha allah taana waxaan rajeyn doonaa inaanu ka baxi doono haddii allah wadalagadaado marka waxaan runtii kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkan aan ku dheeraado ma rabo waqtiga oo kooban awgii aan doonaya inaan mahad celiyo kooxda qayladaan dr cabdi shire oo runtii barnaamijyadooda xagga suugaanta aan oran karo waa kooxda keliya u istaagtay in ay wax badan ka bedelaan barnaamijka suugaanta tan iyo burburkii dowladdii dhexe dalka Soomaaliya oo hadda inta aan joogno anigu barnaamijka qayladaan heestii ugu horreysa ka dhegeysta waxay ahayd heestan la soo saaray ardayda qayladaan iyo waxaad haysataa dira oo ahayd tii abaarta oo kale iyadana runtii hees aad u qiiro badan qofkii dhegeysta oo kale ah runtiina barnaamijyadiina aad bay u xiisa geliyaan qof kasta oo Soomaaliyeed oo dareemaya waxa ay tahay midnimada iyo qarannimada marka waadna mahadsantihiin aniga haddii aan markii hore waxaa laga yaabaa in magacayga ilaa waxa la yidhahdo maxamed axmed minjir waxaan dhamaystay BSc Geology iminkana waxaan wadaa postgraduate ah master wabillahi tawfiiq waan mahadsantahay maxamed axmed minjir barnaamijka si dadka cod aan dhaho inkastoo laba akhri uu yahay doctorka oo aqoon-yahana uu yahay suugaanyahana yahay anaga laftigan waxaa laga yaabaa rag turturtaan ugu jira dhinaca suugaanta marka barnaamijka insha allah tacaala soo socda hadda waxaan gelaynaa ardaydu waxay qabaan su'aalo aan islaahay waxay weydiin doonaan doctorka ama abwaanka insha allah tacaala waxaan rajaynayaa inuu abwaanku diyaar u yahay suugaanyahanka iyo aqoon-yahanka kaalin intee leeg ayay ka qaadan karaan marxaladda waddanka uu ku sugan yahay marka insha allah tacaala ardayga su'aal qaba bal masha allah tacaala bal mikrofoonku weliibaynaa waana weydiin kartaan doctorka su'aalaha qabtaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا كدب وحنا دي عدوما تعلمنا ولا سلام يا أبوانك كواحد غلان كبيرك دكتور عبد الشير الجامع برنامج كان قيمة بدن وعاديات ومغلس وخير وانت برنامج كان نصو أباب الشيء هذا يوم هاتين انت كدب مهدي أبو بلا مقاليقا وحاني لها تهديد حمود وحانا لما جامعة JNTU Faculty Institute of Science and Technology مادة محبرتي MSc of Biotechnology واه برانش كمية Life Science انت كدب وحان قلع سؤال runtii abwaanka
wuxuu noo kala qaaday suugaanta doorkii ay ka leedahay xagga Soomaaliya marxaladeeda marka horena u dhageystay qeybo kamid ah suugaanada oo soo jeediyo kooxda qaadan kii kamid tahay ardadii hotel Shaam oo lagu laayay runtiina suugaanta sidoo uu sheegay dhinac suuban ee wax baratay kicinaysa dareenkooda in ay Soomaaliya ama dadka dhibaataysan ay xal degdeg wax ugu qabtaan khaasatan ayagoo dareensiinayso waxa ay barteen inuu dalku u baahan yahay oo anfacayso maadaama horay suugaan fara badan xagga wadaniyada ahaleed dhinacyada isku haya looga hadlay dhalinta kalena dabka loo geliyay ma abwaanka ma sameeyay mase jirta hadda uu ku tala jiraa in uu sameeyo suugaan ku saabsan ardayda ama dhalinta yar ay wax baratay si dalka wax uga qabtaan intaas waa su'aasha assalaamu calaykum warahmatullahi كلا الودرية المحلية